بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ugu dhacday arin aad u cajiib ah oo runtii aan kala kulannay ciidamada booliska Soomaaliland qaasatan kuwa Hargeysa saldhigga qurac dheer maalintii Jimcihii ayaan anigoo inaan dhaawac sida oo u raba dhaawac muujin si aan referta uga qaado saldhiggaas oo ay arintaasi qusaysay oo xafadiisa ka dhacday ayay askartii gaarku igu yiraahdeen gaariga baarkinka dhig halkii hore dhigay baan ka qaado halkii igu yiraahdeen dhig baan dhigay inaan yar baa igu soo dhaqaaqay oo ciidanka kamid oo kuwii gaarka ku jiray kuwii kalena meesha fadhiyeen marka askarigii igu soo dhaqaaqay baa igu yiri waad kibirsantay taadeer waan ku aqaanaayo dabeetana waa maxay kibirka malcamada la igu ka keenay si fiican ilaahda soo gaariga imada ran halka ka dhaqaajiyo halka dhig halkina ma dhig maxaad kala darta miyay kibraniyad baatay deegar darra cadaan oo aan miyana kulahayn haystaagin miyana warwal qof dhaawacaan sidee miyana saldhigga barinkiisa inuu halkan loo istaagin loo ma istaagin ka talo hay halka ugu tiriimka istaag ma istaag ha maxaa wada dad darantay war hay caayna diga edab daranay loo xanday xijaabkii oo soo qabtay markuu xijaabkii soo qabtayna waxaan ku yiri war naga qaad faraa markan isagii ku jeestay isagina day igu dhigeen anagana is qabsanay gabadh baa soo dhaqaaqday gabadh askariyada buuyadana ku yiri noo kaxee gabadhii baa iyaduna babiga ka siisay oo anigii iyadii isagii baa wada qabtay laba askariyo kalena way noo yimaadeen saddex askari iyo gabadhii uu u yeeray oo markaa anigu gabadhii uu is qabsanay bay saddexdii askari badushay iga dilay hooyo gaarigii iga dambeysay baa iga soo daba degtay hooyadii markii iga soo daba degtay waarna seeleedi miyaad dilaysaan tiri iyadina waa la igu soo daray oo iyadina saddex kala qaabishay hooyina saddexdii askari baa halkii horteeda ku dilay hooyadii way xanuunsanaysaa li habeen baan dhakhtar ka soo sukiin dhakhtar ka keen anaga halkii baan lagu laayay waliba intana la jiiday oo dhulkana la jiiday oo waxaasi dhulkii ciidii yihiin ayaa jiidniinkiina lagu galiyay gudaha markiina la galiyay gudaha hore markiina la galiyay ayaa waliba naloogu daray in maxaan ku dhahday obiga dhexdiisana lagu garaaco anagu dawarka maanan hayna nin baa markaa lahaa war ka daaya taliyaha saldhiggu sidaan markii dambe ku warheli doono xanuun buu ku maqan yahay baa leeyahay xanuunsanaya taliye ku xigeenkii weeyaan ninkan la leeyahay ka daaya ninkan la ka daaya la maqli waayay lix askari iyo gabadhii ay u yeereen toddobadii baa na jilciyay aniga hooyadeena la jiidayo oo marina halka xijaabadana xidhnaana laga dhigo timina la jiidayo ayaa gudaha hore la galiyay oo biga markii la galiyay feerjilbiye waxaana lagu qaraacay gacan ciidan baana martay askartuna dadka way iskugu tagaa inta waxaan oo dheeray gacanta ciidanka in ku dhacday waxaan oo dheeray inta maxaa la yiraahdaa garka saa u qabteen hooyadii gidaarka saa ugu dhufteen oo sida ragga u feerfeeran ilaa imkana nabaradii ku yaalaan sawiradoodina aan hayo imka waxa lagu leeyahay dhakhtarka alxayaat socodkan guriga igu timaadeen si iskaan loo soo mariyo waxay qabto anaki markii meeshin laga kabiyo wixii oo dib marka hore banaanka laga soo dhacay bay soo xareysteen telefoonka dhulka iga dhacay inantii dhaawac ahaydeen wadnay lafteedii ayaa qaatay gudihii hore la geeyay markii gudihii hore la geliyay waana la xiray maqsin baan lagu soo qufulay markii maqsinkana lagu soo qufulay ayay maxaan ku dhahdaa ayay inantii oo dhaawac muujintii ay siiyeen deeyo ay anagina naga xareeyeen oo aan cid meesha ka qaadaa jirin ayaa anagii noo timid oo tiri yaan dee la hadlaa waa tan laydin xidhay waxaan anaa ku cidna la hadlay telefoonkayga hadaysay ii dhiib shabagaani ii soo istaagtay telefoonkii baan soo qabtay dee dad baan garaacay waxaan doonayaa nambarkii jananka inaan helo maadaama anigii hooyadayba dilnay waxaan jananka ugu eeranayay dee waxaan islahaa waa maaragtay xubintii ugu sareysay oo halkaas cadaalad ka heli kartaa waxaan ku war helay in generaal dabagala maqan yahay cidii markaa dee nambarada ka raadinayay waxaan weydiiyey in jirto cid kale oo aan la xidhiidhi karo oo ciidanka lagaga sii tagayo kasii mas-uula maadaama jananka Jabuuti ku maqan yahay waxa la ii sheegay in la yiraahdo Cabdi Xasan Qarbash inuu yahay kusimaha jananka
inuu yahay janan ku-xigeenka isla markaa imikana uu sii yahay janan ku-xigeenkii iyo ku-samiyey jananka ciidanka waan garaacay oo iga qaban waayey inta inantii meesha taagnayd baan tagay soo dira waxaan ku yidhi taliya waa gabadh sidaasa ooda garays la yidhaahdo waanu xidhannahay markaa telefoonka iga qabo waana nala dilay telefoonkiibuu igu soo celiyeyba waan ka qabta waxaan ku yidhi taliya waxaasaa nagu dhacay waana la dilay anigii hooyaday waxaana u soconayna waxay ahayd inaanu gabadha muujin u qaadno wixiiba laakiin waxa kasoo soo ka martay gacan ciidan baa nagu dhacday qol baana loo xidhay feerjil baana lagu garaacay si cadowtinimo leh oo ciidanku isgarab siinayo oo ciidamada booliskuna dadka way isugu tagaan qof kastoo shicibina taa wuu ogyahay oo gacan ka simano xitaa haddaad go'do la isleeyahay yaanay shakhsi gaara loo raacin ayaana loo dilay anigii hooyadayba waxaa dhacday marka ninkii sidii ugu sheegay wuxuu igu yidhi haye iminka lagu howlgelayaa aadna waad mahadsantahay adeer haye adeer adigaa mudan dee waxaan islahaaba cadaalad baad gaadhay oo madax meel ka sarraysa oo la salaaxaa ma jirtee haddaad janankii weyday dee janan ku-xigeenkii baad heshay janan ku-xigeenkii markii aanu la hadalnay uu yidhi cid baan idiin soo diray oo laidin howlgelaya waxaa noo yimid taliyaha qaybta bariga muse xasan kaahin la yidhaha intii aan anagu waxaanu qabnana la eegin oo aan nabarada iyada arkaysaan cidina u jeedsanin iyo kuwo kaloo jirhka ah oo meelahana laga dilay dhabarka iyo caloosha u badan tahay si aan nabar muuqdo kalena loo ku arag oo dhaawac muujintayadana aanu hablaha dhakhaatiirta atusnayo ku caddahay ayaa naloo soo diray markuu noo yimid taliyihii qaybta barigu hal shaqoo quru qabta waxaanu qabnana lama weydiin si ay wax u dhaceenna lama weydiin halka shaqo qudahayda la qabtay waxa idin la ogaado sida aan ku helay telefoonka sidee gabadhan telefoon ku heshay iyadoo saldhiga ku dhex jirta waana la baaray siday ahayd baan ugu sheegay waxaan ku yidhi taliye maadaama anagu ciidankan islaynay oo aanan ku eeran karin oo aanan waxba kala hadli karin annaguna marka hore aanu meesha dee cabashayinaan dad dhaawaca wax laga siiyo u keennay waxaanu anaa la xidhiidhay janankii markaan weyne janan ku-xigeenkii baan helay adigana sababta iyo sifada lagula soo hadlay waa taas cid kaloo aan ashkateeyey cidaan meel u marina ma jirto nimankanaana jaray taliyahoodina waa kana wuu taagnaa oo ka daayay buu lahaa isagaanay amar diiddo ku sameeyeyna waa kana weydii waxaan ku yidhi telefoonkaygiinbaa prioritiga la siiyey annagii dhammayna dhaawac ahayn iyo hooyadaydii meesha taallay iyo annagii hadlaynay iyo anigii soo cawday iyo anigii u xidhnaa nimankii la dilayna dilay laftoodii midna wax kasoo qaadna laguma samaynin telefoonkiiba muhiimadda siiyey taliyii oo naga baxay subaxii markuu aagu bariyay intii uu inankii yaraaye gaadhka ku jiray cadaadisna saaray uu diiday in xataa cuntona loo keeno uu diiday xataa in maxaan ku dhahdaayey qof noo soo galo oo sidan wuxu qabnana la eego waxna la weydiiyo baa subaxii markuu aagu bariyay dadkii isku wada yimaadeen faamligii iyo maxaa la yidhahdaayey dee niman kaloo aanu la hadhadalay oo iyaguna ciidan ah waxaa kaloo noo yimid ururka soolja iyo madaxda telefishinka horyaal iyo gudoomiyaha ururka soolja iyaga laftoodana way arkayeen wixii meesha ka dhacay gudoomiyaha soolja sakariya iyo madaxda telefishinka horyaalo markii aan anagu ka tirsanaa markay noo yimaadeen ee ay maxaan ku dhahdaa inay yidhaahdeen waan u gelaynaana inanka yara gaadhkii xitaa inta liya qaybeedka loogu dhiiba telefoonka wuu diiday annagana waxaan ugu dhacday gacantii ciidan waxaan ula heshay gardarre garab og oo waxaan qabnay baan cidi eegini telefoonka iyagii annagii muwaadiniinta ahayna ee soo cabanay ee islahayn dee madax meel ka saraysa ma jirta janankii baad la hadashay uu maxaan ku dhahdaa telefoonkii naga qiimo badnaaday oon sidee wax u qabtaana la odhan oon rifeertana la siinin subaxii baan ku darinay in rifeertana la siiyo oon idhi annaguna waan dhaawacnay rifeertahana la siiyo taliyininkii oo biig maxaan ku dhahday ku yidhi rifoortooyin si nabaradana habla askarana loo soo diroona eegay sidii baa rifoortooyinkiina lagu siiyey si dhakhtarina cidinamay geynina looma ogolaanin taliye ku-xigeenkii ciidanku ee markaas saldhigga joogay ee arkayay inay ka daaya lahaa ka daaya wuxuu sameeyey si dembigeegii loo dambebeso in 3 askari oo ciidanka ka mid ah rifeerta la siiyo oo anigii hooyaday oo markii aniga la dilay gaariga ka soo degtay si dembigeega loo dambabisay ciidankii baa rifeerto in la siiyo dhakhtarkii loo diro waxay qabaana soo sheegaan oo hana la tuso annagu waxaanu qabnana cadayn baanu haysanaa
markii aan siideyntii la taagan yahay subaxii la yiri maxaa la yiraahdaa idinkuna waa dagaalanteen iyaguna waa maxay waa kana aan anagu deetana maadaama hooyaday saldhiga ku dhex matagaysay aan abaalba ku qabiinan maadaama kiniin aan loo soo dhaafin karno inankii yara wali gaadhkii joogo talakiciyinku awoodna u yeelan waa inuu xitaa naga bedelo oo ama uu yiraahdo war waxa loo sido baadhuna u siidaa oo hooyaday saldhigii ku dhex matagaysa waxaan sidhiyaad seersanin saldhiga anigu haday aniga ahaan leed kama baan soo baxeen inta jananka ciidamadu imanayo ee arintaydu dhinacuun u dhacayso laakiin hooyadii oo xanuunsan oo 6 cishaan dhakhtar ka soo sokoynay oo waraaqaheedii dhakhtarku gaadhigaba noo saaran yihiin in maxaan ku dhahdaaye inta loo diiday in xabad kiniina dabada looga soo geliyo waxaan sidhiyaad seersan hooyada halka ugu dhimanin gacantaas imaniyo safiinkaas loo dilay oo cid gaar ah uma raacanaysidii dabeetana waxaan ogolaanay in la sii daayo bal si aan la maaragtay hooyadii ula tacaalo markii la soo daayay ee aan maxaa la yiraahdaa qolkii ka soo baxnay ee ay ahayd inaanu kadinka ka baxno ayaana la ku qasbay inaanu qorno nootaayo anaku dambi geystayaal nahay dhib geystayaal ciidankuna dhibana ka yahay warqadii baa la soo qoray waana loo keenay waan akhriyay waxaan ku dhimaa anaga dhibanayaal ma waxa doonaysaa inaan maryaha iska bixiyo nabarada igu dhufateen idin tuso masaasa iga rabtaan miidaan hablahan jirkayga soo eegay iyo jirka hooyada eegay aaminaynin ma anaga dhibta waxa la yiraahdaa macnaha waa eedaysana qofka qof ka gardarani laakiin dhibare iyo dhib geystay waxa la yiraahdaa nabarada meesha yaal cidda dhibta loo geystay iyo cidda geysatay nabarka markaa meesha yaala ayaa la yiraahdaa anagii baa dhibanayaal nala soo dhib geystayaal nalagu soo qoray ciidankuna dhibanayaal buku ahaa qasab waxa nagu noqotay intii nalaga saxeexo dhulkii nala jiidayna waa kan naga muuqda iyo sidii saldhiga noogu xareeyay iyo in feerjiribna lala dhacay oo sidii raggana loo laayay kuwaas u saalan kuwa jirkayga ku yaala telefoonkaygan ka tusi karaa cid kasta u baahata waxaan ugu dhacday waxaan inaba caadi ahayn wixii nagu dhacay waxa soo soo maray xilligii laga wada hadli lahaa iyo xilligii gurmad iyo gargaar noo iman lahaa daanigu cid kale ma filin maadaama jana ku xigeenkii ciidanka Cabdi Xasan Qarbash garaacay oo waxaan isna dhaba telefoonkayga yaalo oo haddana intii musaxsanka ay noo yimid telefoonkayga la garaaco waa nambarkaaga iyo keenta lay guro maxaad qabtaay adeer sidii wax ku gaadheen iyo ku dilay iyo miyaan meesha tariyuu joogin iyo midnaba aan wax ka soo qaadan ka sameeyne de gacan ciidan nagu dhacdo dabeetana waxa igala weynaatay in ciidankuna dilay waxa igala weynaatay inaan janankii nambarkiisii helay oo nafka la gaadhay oo wixii anigu dibi ku soo noqdeen aan waxba kala leey tarin ciidankii waxaan u arkay gardarre garabka yogina waa janan ku xigeenka ciidanka oo aan anigu la hadlay oo aan waxba kala loo qaban markii dambana lagu qasbay si aan hooyaday ula tacaalan cisbitaal oo la helo idinka gurigeyga yimid hooyaday waxa lagu la maqayaa xayaat cadeynteedina waa idin soo bandhigaya si aan ula tacaalo hooyaday aan abaal ku qabay inaan dibgeystaha anigu ahay bilowgii inaan kayri garasho uu garanayo iyo ciidankuba naloo dilay oo nala yidhi inayro kibraaniyada baa tahay dee bal anigu waxaan ciidanka ku sameeyey iyo waxaan qaranka ku sameeyey iyo waxaan ku dhimanay iyo maxaan ku dhahdaayay waxaan gaadhay ciidan u raacayno haddaan inamadii raasi shakhsiye iyo reerahoodii u raadsanayno iyo haddii ciidanka qaranku dhibtii nagu dhacday qaadanayo anagu ciidanka qaranka waan ku soo yeeranay oo dad bukaan u keenay oo nabar ku dhaceen markii dambana anagiiba janankii ku sii yeeranay oo isniiri maxaan ku dhahdaayay muwaadinad baa wadankeedii joogtay halgula tacaalay janankiina waxa dhabankayga waxa ku yaala waa dharbaaxooyin rage waxaan si degdeg uga filaynaa inay noo soo jawaabaan ciidanka qaranku cid kalaba ma filaya in jananka ciidamadu haddii wadanka ku soo laabtay walawaanan xog waynin uu noo soo jawaabo haddii kalena dee warbaahintu ka arki doona waxa nagu dhacay waxaanuna marti uga nahay inuu halkaa noogu yimaado waxa nagu dhacay nala eego waxaanuna marti uga nahay inta ku xigeenkii ciidanka in ciidanku amar diido ku sameeyey oo maxaan ku dhahdaayay wardaaye lahaay nala deyn waayo nala dilay naloogu dhaariyo haddii ay maxaan ku dhahdaay nala deyn waayo 7 askari nala dul mareena uu isagu marag noo furo haddii ilaa anagu ciidanka nimada shicib la iskuma dhexlayna saldhigaan isku laynay haddii maxaan ku dhahdaa oo lagu dhex dilay haddii uu maxaan ku dhahdaayay anagu dembiga leenahayna laamaha cadaaladda nala waafajiyo haddiina laga gardaran yahay in inta nala dilay waliba qolna lagu xidhan waliba janankii garaacana waliba anaga nala baadho kaxabadkii inay dabadda uga soo gasheen hooyadii la diido
annagina maxaan ku dhahdaa sidaa dhabankayga iyo jirkayga rag u galo nala dilo hadday dawladdu daacad ku tahay oo sidaa rabto oo la isla ogyahay oo inagu jana ku xigeenka ciidankan u dacwoonay war degdeg oo aanu shakhsi dadku weerarsanayno hana loo soo sheego on reerahoogi iyo raadsanayno haddii aanu dawladda cabadayaal u nahay oo aanu dawladda dhibanayaal u nahayna dawladda jawaab degdeg ah hana soo siiso fariintaydana waxaan rajaynayaa inay gaari doonto jananka ciidamada iyo cid kastoo ay qusayso waa ay tay jananka xigeenkii waddanka jananka ka sii ahaa arxanba kalamaanaan kulmin jilbahana hoolan cid kastoo cadaynu baahata waan u haynaa jilbahana hoolan gacmahana hoolan jirkaana laga dilay sidii wax maaragtay cadaawo ah oo la garasho dilay waa hoda garays bay isku lahayn markay dilayeen timahayga safaraa kula tegeen timahaygiiba faraha kula tegeen marka haddii ay maxaan ku dhahay dawladdu waxaa kula socoto oo lagu wada socdo war cadaan ah nala soo siiyo oo aan anagu deeskayo wax u qabno haddii si aanu dawladda dhibanayaal u nahay markii horena aanu xarun dawladeed nimid oo aanu xarunta dawladda ku soo eeranay oo aanu dawladdeedii u nimid oo aanu islahayn waxa laydiin qabto oo markii dambena aanu janankayagii la hadalay wixii nagu dhacay oo waxba nalooga qaban waayey dee anigu meelay ka socoto madax meel ka sarrayso la salaaxaa ma jirtee meelay ka socotoon maanta u dacwoono oo nabaradeedaa u bandhigno oo aanu maxaan tolay nidhaano waxaasaa nagu dhacay waxaa kaasaa u sahlan nabarada jirhkayga ku yaal safayn baana lagu dilay inaanu namada yarraay namadeeda u dirno waynu heli karnaa saldhig waa kay xaafadayada inaanu si kaloo maxaa la yidhahdayy intaba waynu heli karnaa waxaasaanu rabnaa bal cidda ka dhiman laamihii cadaaladda maadaama jana ku-xigeenkii gaadhnay cidda ka dhimanna inay arrinta nala ogaato waanan wadayaa mar qura ma aamusayo inta arrinkaygu meel lagu tiirinayo ee hooyadayda la dilay qaliin baa lagu samaynaya hooyaday 6 habeen baanu magaalada joognaa dhakhtar baan ka keenay waxaan ku feer jirib iyo hidh baa lagu garaacay inta qolkana lala galay baa gacan ciidan ilaa aan baralaati noqonay aan laga tagin intii aan firfircoonayna ay daanan nala jilcinin baa dhulka nala jiiday markaanu galay maxaa la yiraahdaa qolka oo biigana feer jirib iyo hidh inta naloo xidhay maxaabiista meesha ku xidhan baa noo maraga intii dhulka nala soo jiiday wixii nagu dhacayna markii meesha nalagu xidhayna taliyaha noo maraga kitaab quraan aan ku marinayna inaanu oran ka daayo oo wixii nagu dhacay u taagnayn oo sida ragga inta timahayga taana loo qabto sida calooshayada iyo dhabarkayaga calashaan ciidamada booliisku waa ciidankii dawladda ka dhax yimiday waa ciidan dawladda u xil shicibka u xil saaran shicibka la'aantoodna wax ma noqon karaan ciidanku qoriga inanka yaraa ku qabsada nin iyo nin labada gacmood isula yimid bay noqon karaan family ahaan baan u qabsan karin saldhig qurac dheer shalay markii inta hooyaday lagu dhex dilay nimadeedu banaanka ka joogani hooyadina dhiiga tufaysay gabigiisaan la wareegi karnaa inaan yar walba inaan yar qori loogu diri karay laakiin waxaanu niri bal waxaynu ku dhacay waa aragtaa inaan inagoo diloon noqonin dad iyagii dilan haddana laga gar helo cid kastoo noo timid waana laga ilaaliyey xabadkin inay noo soo gashay waana laga ilaaliyey 48 saacadood inaan musqusha tagno waana loo diiday 23 saacadood baan u jeedaa 23 saacadood dinka ka jardo 23 saacadood inaan xorriyad musqusha ku galno waana loo diiday inaan maxaa la yiraahdaa kanina loo keenay waana loo diiday biina loo keenay waa la ursaday si meesha duqaan bay leedahay in gas ay tahay loo ursado gaasta liido ka kala yaa maxaabisti meesha noo sheegtay waxaan loo dhaqmay naadantinimada ka baxsan waxaasna anigu waxa ugu badan inuu aanay wajin ku xigeenka ciidanka wixii nagu dhacay markay nagu dhaceen hadeenu cadaalad heli lahayn isagaan u dacwoono kaaleedaan ku banaalaay hadeenu cadaalad heli lahayn maanaan damqanin oo axmaanaan nidhaahnin laakiin marka telefoonkayga aan meesha ku dhaxaystay waa gabadh calashan warbaahin ka shaqeysa oo telefoonkayga dibtiina haysatay ka saameyn batay dawaan dabqanay mar qurana aamusameyn intan waa sahaalay ururka saxafiyiinta Soomaaliland bad magacowday inaad la xiriideen markii aad la xiriideen maxay sameeyeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland marka hore sidoo xeerku yahay waa inay meesha hawshu ka dhacday yimaadaan oo ay la xiriiraan cidii madaxda ahayd haysatay si ay u hubiyaan wariyaha laftiisu inuu dambiile yahay iyo in wariyaha uu dhibana yahay oo dambi laga galay sidii bay sameeyeen oo saldhigii bay noogu yimaadeen si daadad qaldan tahay oo adreerkiina reer islaynayaan raacday warbaahinta kuma difaaci karto laakiin marka aniga la igu hoda garaysa waan ku naqaanaa waad kibirsan tahay meeshii lagu dilay aan xare ciidan nimid aan anagoo cid soo laynayna keenin aan gaarigayga lugahayga ku tagay waxaan xaq u lahaa in la ii hadlo la yiraahdo maxay sameeyay maxaa lagu dilay ku dhinteen waliba anigii hooyadayba
markii ay yimaadeen ay yidhaahdeen waxay qabtaan oo eegno waxa loo diiday inay iba soo galaan inanka yara kadinka joogaya askarigii wuxuu yidhi maba xitaa taliyaha qaybta inay telefoonka ugu dhiibaan bay dooneen waad weydiin kartaan Soldier iyo madaxda telefishinka horyaalba waa laga diiday waxa la yidhi ma galaysaan telefoonkana ku hadli maayo marka ma waxay idin sheegeen wax ka gaaro aan intan ahayn baa jiro idin dhex maray markii hore de wallahi anigu wax horo dal ciidan baan ahay dadka ciidanka kuma soo degdego kuma jiro dadka qaar baa laga yaabaa inay ciidanka isaga kibraan iyo waxaas anigu wax gaar ah oo aan ciidan weligiiba de ka galay iyo waxaan qaranka ka galay toona garan maayo oo aan ahayn in maxaan ku dhahdaa deynamadu ilaahay waad kibirsantay kibirkan meeshan ku galay baan xitaa garanaynin waad kibirsantahay askariga ay taliyuuna uu maqlay dadkii meesha taagnaana way maqlay waana ku naqaanay inay kibirsan baa tahay bal waxaan ku kibrayay aan sameeyay la rabo maxaan ku dhahdaa ilayga rabay aan ku wixii waxay gala cuslaatay waad kibirsanayde waad kibirsanta waan ku naqaanaa hooda garaysay ayaan horta ku dhintay oo lagu dilay hooyadiina da qof ilmihiisa saddex askari ku fadhiisteen ay noqoto way adkaysan weydo waarnanta ay gadilna markay tiriyadina waa la igu dar markii dambe inta qol nalala galay oo bigo albaabka naloo xidhay ayaa feerjirm lagu garaacay marka de wax anaga hore oo anagii ciidanka noo horeeyay iyaga la weydiin doonaa iyagu arrinka markaas sababta macnaha sida lagugu sii daayay ma qaab dhaqan baa lagugu sii daayay qaab nooceeya lagugu sii daayay oo saldhigaad uga soo baxday waxaana lagu sii daayay qaab dhaqan markii horeba horta aniga familygayga oo dhan way yimaadeen xildhibaanana way yimaadeen si ay damaanad noogu qaadaan laakiin waana la diiday waxa ugu badan in lagu sii daayay in looga faa'iideystana waxa weeyaan horta iyaga maslaxad ka qabay imka ciidanku inay sii daayaan cadaymana waan u hayaa iyaga maslaxad ka qabay ciidanku inay sii daayaano waxay rabeen si aanay arrintan u bixin oo aanay maxaan ku dhahdaa بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ugu dhacday arrin aad u cajiib ah oo runtii aanu kala kulannay ciidamada booliska Soomaaliland khaasatan kuwa Hargeysa saldhigga qurac dheer maalintii Jimcihii ayaan anigoo inan dhaawaca sida oo u raba dhaawac muujin si aan referto uga qaado saldhiggaas oo ay arrintaasi qusaysay oo xafadiisa ka dhacday ayay askartii gaarku igu yidhaahdeen gaariga baarkinka ka dhig halkii hore dhigay baan ka qaado halkii igu yidhaahdeen dhig baan dhigay inaan yarba igu soo dhaqaaqay oo ciidanka ka mid oo kuwii gaarka ku jiraya kuwii kalena meesha fadhiyeen marka askarigii igu soo dhaqaaqay baa igu yidhi waad kibirsantahay taada yar waan ku aqaanaayo dabeetana waa maxay kibirka malcamada la igu ka keenay si fiican ilaahda soo gaariga madaran halka ka dhaqaajiyo halka dhig halkina maan dhig maxaad kala darta miya kibraniyad baa tahay deegar darra cadaan oo aan miyana kula hayn haystaagin miyana warwal qof dhaawacaan sidee miyana saldhigga barinkiisa ayna halkan loo istaagin looma istaagin marka hay halka ugu tiriimka istaag ma istaaga ha maxaa waad edab daran tahay war hay caayna diga edab daranay loo xanday xijaabkii oo bay soo qabtay markuu xijaabkii soo qabtayna waxaan ku yidhi war naga qaad faraa markan isagii ku jeestay isagina da igu dhigeen anagana is qabsanay gabadh baa soo dhaqaaqday gabadh askariyada buuyadana ku yidhi noo kaxee gabadhii baa iyaduna babiga ka siisay oo anigii iyadii isagii baa wada qabtay oo laba askariyo kalena way noo yimaadeen saddex askari iyo gabadhii uu u yeedhay oo markaa anigu gabadhii uun is qabsanay bay saddexdii askariba dusha iga dilay hooyo gaadhigii iga dambeysay baa iga soo daba degtay hooyadii markii iga soo daba degtay waarna see leedi miyaad dilaysaan tidhi iyadina waa la igu soo daray oo iyadina saddex kala qaabishay hooyina saddexdii askari baa halkii horteyda ku dilay hooyadii bay xanuunsanaysaa li habeen baan dhakhtar ka soo sukiin dhakhtar ka keenay anagii halkii baan lagu laayay weliba intana la jiiday oo dhulkana la jiiday oo waxaasi dhulkii iyo ciidii yihiin ayaa jiidniinkiina lagu geliyey gudaha markiina la geliyey gudaha hore markiina la geliyey ayaa weliba naloogu daray in maxaan ku dhahday obiga dhexdiisana lagu garaaco
anagu de warkamaanan hayna nin baa markaa lahaa waar ka daaya taliyaha saldhigu sidaan markii dambe ku warheli doono xanuun buu ku maqan yahay baa leeyahay xanuunsanaya taliye ku xigeenkii weeyaan ninkan la leeyahay ka daaya la maqli waayay 6 askari iyo gabadhii ay u yeedheen 7 baa na jilciyay aniga hooyadeyna la jiidayo oo marina halka xijaabadan xidhnaana laga dhigo timina la jiidayo ayaa gudaha hore la geliyay oo biga markii la geliyay feerjirbiye waxaana lagu qaraacay gacan ciidan baana martay askartuna dadka way iskugu tagaan inta waxa noo dheeray gacanta ciidanka in ku dhacday waxa noo dheeray inta maxaa la yiraahdaa garka saa u qabteen hooyada gidaarka saa ugu dhufteen oo sida ragga u feerfeeran ilaa imkana nabaradii ku yaalaan sawiradoodina aan hayo imka waxa lagu lamaqayahay dhakhtarka alxayaat socodkan gurigeyga u timaadeen si iskaan loo soo mariyo waxay qabto anaki markii meeshii laga kabiyo wixii oo dib marka hore banaanka laga soo dhacay bay soo xareysteen telefoonka dhulka ga dhacay inantii dhaawac ahaydeen wadnii lafteedii ayaa qaatay gudihii hore la geeyay markii gudihii hore la geliyay waana la xidhay maqsinbaan lagu soo qufulay markii maqsinkana lagu soo qufulay ayay maxaan ku dhahdaa ayay inantii oo dhaawac muujintii ay siiyeen deeyo ay anagina naga xareeyeen oo aan cid meesha ka qaadaa jirin ayaa anagii noo timid oo tiri yaan dee la hadlaa waa tan laydin xidhay waxaan anaa ku cidna la hadlay telefoonkayga hadaysay ii dhiib shabagaani ii soo istaagtay telefoonkii baan soo qabtay dee dad baan garaacay waxaan ku waxaan doonayaa nambarkii jananka inaan helo maadaama anigii hooyadayba dilnay waxaan jananka ugu eeranayay dee waxaan islahaa waa maaragtay xubintii ugu sareysay oo halkaas cadaalad ka heli kartaa waxaan ku war helay in generaal dabagala maqan yahay cidii markaan dee nambarada ka raadinayay waxaan weydiiyey in jirto cid kale oo aan la xidhiidhi karo oo ciidanka lagaga sii tagayo kasii mas-uula maadaama jananka jabuuti ku maqan yahay waxaa la ii sheegay in la yidhaahdo cabdi xasan qarbash inuu yahay kusimaha jananka inuu yahay janan ku-xigeenka isla markaa imikana uu sii yahay janan ku-xigeenkii iyo kusimihii jananka ciidanka waan garaacay oo iga qaban waayey inta idinta meesha taagnayd baan tagay soo dira waxaan ku yidhi taliya waa gabadh sidaasa ooda garays la yidhaahdo waanu xidhannahay markaa telefoonka iga qabo waana nala dilay telefoonkiibuu igu soo celiyeyba waan ka qabta waxaan ku yidhi taliya waxaasaa nagu dhacay waana la dilay anigii hooyaday waxaana u soconayna waxay ahayd inaanu gabadh dhaawac muujin u qaadno wixiiba laakiin waxaa kasoo soko martay dee gacan ciidan baa nagu dhacday qol baana loo xidhay feerjil baana lagu garaacay si cadowtinimo leh oo ciidanku isgarab siinayo oo ciidamada booliskuna dadka way isugu tagaan qof kastoo shicibina taa wuu ogyahay oo gacan ka simano xitaa haddaad go'do la isleeyahay yaanay shaksi gaara loo raacin ayaana loo dilay anigii hooyadayba waxaa dhacday marka ninkii sidii ugu sheegay wuxuu igu yidhi haye iminka lagu howlgelayaa aadna waad mahadsantahay adeer haye adeer adigaa mudan dee waxaan islahaaba cadaalad baad gaadhay oo madax meel ka sarraysa oo la salaaxaa ma jirtee haddaad janankii weyday dee janan ku-xigeenkii baad heshay janan ku-xigeenkii markii aanu la hadalnay uu yidhi cid baan idiin soo diray oo laidin howlgelaya waxaa noo yimid taliyaha qaybta bariga mise xasanka ahin la yidhaha intii aan anagu waxaanu qabnana la eegin oo aan nabarada iyadaa aa arkaysaan cidina u jeedsanin iyo kuwo kaloo jirhka ah oo meelahana laga dilay dhabarka iyo caloosha u badan tahay si aan nabar muuqdo kalena loo ku arag oo dhaawac muujinta iyadana aanu hablaha dhakhaatiirta atusnay ay ku caddahay ayaa naloo soo diray markuu noo yimid taliyihii qaybta barigu hal shaqoo quru qabta waxaanu qabnana lama weydiin si ay wax u dhaceenna lama weydiin halka shaqo qudahayda la qabtay waxa idin ogaada sidaan ku helay telefoonka sidee gabadhan telefoon ku heshay iyadoo saldhiga ku dhex jirta waana la baaray siday ahayd baan ugu sheegay waxaan ku yidhi taliye maadaama anagu ciidankan islaynay oo aanan ku eeran karin oo aanan waxba kala hadli karin annaguna marka hore aanu meesha dee cabashooyinan dad dhaawaca wax laga siiyo u keennay waxaanu anaa la xidhiidhay janankii markaan weyne janan ku-xigeenkii baan helay adigana sababta iyo sifada lagula soo hadlay waa taas cid kaloo aan ashkateeyey cidan meel u marina ma jirto nimankanaana jaray taliyahoodina waa kana uu taagnaa oo ka daayay buu lahaa isagaanay amar diiddo ku sameeyeyna waa kana weydii
waxaan ku yiri telefoonkaygii baa priority-ga la siiyay anagii dhamayna dhaawac ahayn iyo hooyadeedii meesha taalay iyo anagii hadlaynay iyo anigii soo cawday iyo anigii u xidhnaa nimankii la dilay laftoodii midna wax ka soo qaadna laguma sameeynin telefoonkii muhiimadda siiyay taliyay oo naga baxay subaxii markuu aagu bariyay intii uu inankii yaraa gaarka ku jiray cadaadisna saaray uu diiday in xataa cuntana loo keeno uu diiday xataa in maxaan ku dhahdaa qof noo soo galo oo san wuxuu qabnana la eego waxna la weydiiyo baa subaxii markuu aagu bariyay dadkii isku wada yimaadeen family-gii iyo maxaa la yidhahdaa niman kale oo aanu la hadlayo iyaguna ciidan ah waxa kale oo noo yimid ururka Soolja iyo madaxda telefishinka Horyaal iyo gudoomiyaha ururka Soolja iyaga laftoodana way arkayeen wixii meesha ka dhacay gudoomiyaha Soolja Sakariye iyo madaxda telefishinka Horyaal oo markii aan anagu ka tirsanaa markii noo yimaadeen ay maxaan ku dhahdaa inay yiraahdeen waan u galaynaana inanka yara gaarkii xitaa inta la qaybeedka loogu dhiba telefoonka uu diiday annagana waxaan ugu dhacday gacantii ciidan waxaan u heshay gardarre garab oo waxaan qabnay baa cid yeegini telefoonkaygii annagii muwaadiniinta hayna ee soo cabanay ee islahayn madax meel ka taraysa ma jirto channelkii baad la hadashay oo maxaan ku dhahdaa telefoonkii naga qiimo badnaaday oo sidee wuxuu qabtaan oo loodan oo refertana la siinin subaxii baan ku darinay in refertana la siiyo oo anaguna waan dhaawacnay refertana la siiyo taliyinkii oo bigu maxaan ku dhahdaa ku refertooyin si nabaradana habla askarana loo soo diroon eegay sidii baa refertooyinkiina lagu siiyay si dhakhtarna cidinamay geynina looma ogolaanin taliye ku-xigeenkii ciidanku markaas dhiga joogay ee arkayay inay ka daaya wuxuu sameeyay si dambigeegii loo dambeebiso in saddex askari oo ciidanka ka mid ah referto la siiyo oo anigii hooyaday oo markii aniga la dilay gaariga ka soo degtay si dambigeega loo dambeebiso ciidankii baa referto la siiyo dhakhtarkii loo diro waxay qabaana soo sheegaan oo hana la tuso annagu waxaanu qabnana cadayn baanu haysanaa markii aan siideyntii la taagan yahay subaxii la yiri maxaa la yiraahdaa idinkuna waa dagaalanteen iyaguna waa maxay waa kana aanu anagu deetana maadaama hooyaday saldhiga ku dhex matagaysay aan abaalba ku qabiinan maadaama kiniinaan loo soo dhaafin karno inankii yara wali gaarkii joogo taliye-ku-xigeenku awoodna u yeelan waa inuu xitaa naga bedelo oo ama uu yidhaahdo war waxa loo sido baadhuna u siidaa oo hooyaday saldhigii ku dhex matagaysa waxaan siliyaad seersanin saldhiga anigu hadday aniga ahaan layd kama baan soo baxeen inta jananka ciidamadu imanayo ee arintaydu dhinacuun u dhacayso laakiin hooyadii xanuunsan oo 6 ishaan dhakhtar ka soo sokoynay oo waraaqaheedii dhakhtarku gaarigaba noo saaran yihiin in maxaan ku dhahdaa inta loo diiday in xabad kiniina dabada looga soo geliyo waxaan siliyaad seersan hooyada halka ugu dhimanin gacantaas imaniyo safiinkaas loo dilay oo cid gaar ah ma raacanaysidii dabeetana waxaan ogolaanay in la sii daayo bal si aan la maaragtay hooyada ula tacaalo markii la soo daayay ee aan maxaa la yiraahdaa qolkii ka soo baxnay ee ay ahayd inaanu kadinka ka baxno ayaana la ku qasbay inaanu qorno nootaayo aanu anagu dambi geystayaal nahay dib geystayaal ciidankuna dhibana ka yahay warqadii baa la soo qoray waana loo keenay waan akhriyay waxaan ku dhimaa anaga dhibanayaal ma waxa doonaysaa inaan maryaha iska bixiyo nabarada igu dhufateen idin tuso masaas ay ga rabtaan miidan hablahan jirkayga soo eegay iyo jirka hooyada eegay aaminaynin ma anaga dhibta waxa la yiraahdaa macnaha waa eedaysan qof ka gardaran laakiin dhibare iyo dhib geystay waxa la yiraahdaa nabarada meesha yaal cidda dhibta loo geystay iyo cidda geysatay nabarka markaa meesha yaala ayaa la yiraahdaa anagii baa dhibanayaal dhib geystayaal lagu soo qoray ciidankuna dhibanayaal buka ahaa qasab waxa nagu noqotay intii naga saxeexo dhulkii la jiidayna waa kan naga muuqda iyo sidii saldhiga noogu xareeyay iyo in feerjilibna lala dhacay oo sidii ragana loo laayay kuwaas u saalan kuwa jirkayga ku yaala telefoonkaygan ka tusi karaa cid kasta oo baahata waxaan ugu dhacday waxaan inaba caadi ahayn wixii nagu dhacay